waxa uu yiri 7 sanaan gaaray masabkii ugu sareeyo Soomaali gaadhana waan ku fadhiyaa waxa kaliya oo eegan Soomaali dhisay dhaqaale raadin mayo madaxweyne been baa Ilaahay u sheegtay munaafiq waana tahay aan Ilaahay ka baqay cadaynteedana ummadda hor dhigaya maanta madaxweyne Ali ka horeeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal taako oo dhul asagoon iibsan ayuu dukumeentiyadiisa ku gudbiyay ee qabiyo aad markale kuma xushmeeyeen maanta adiga ku wada xaraashiin naagtiisu shidaalka iyo qandaraaska wadanka ma aysan haysan gabadhiisu wasiir arrimadeed kala dhigan kan gabadhiisa qaba xil loo dhiibin wiilkiisa iska badaa warkeeda walaalihii wadanka xaraash kuma hayn adigoo walaalaha iyo gabadhaadii iyo naagtaadii iyo wiilashaadii wadankii wada dhiibay meel kasto lacag taalay ayaana leh Soomaalida raadinaya ay daa'ima dhimana barnaamijkana waa gardhigasho Soomaali baan u dhiibaya gartaas ayadana naqaysa cadayn kasto aan hayaan halkaan soo dhigaya maanta dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego daa'ima dhina Soomaalidu maxay kuma maajir 60 jir oo 60 kuma laabna nin 60 sano gaaray 60 sano kala kuma dhina da horta waxaan odayaan ahay da'an jooga darajo qof Soomaali gaari lahayo idin hadda si hiigsadaana ma jirto waa jooga mar labaad kan jooga waliba on taariikhda soo marin Soomaalida baadi dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogan hadaf nololeed oo aan noolaa oo aan leeyahay oo aan ahayn dawlad Soomaaliyeed oo caga dhigataahi ma jiro barnaamijka waxa la yiraahdaa gardhigasho Soomaali ayaan u bandhigaya Xasan iyo Soomaali baan istusaya marxaanti iyo gartaasna cidda goynaysaa waa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto idinku isgaarsiin Xasan waxa uu yiri daa'ima laabna oo Soomaaliyeed baan ahay amri waa tagay mansabkii ugu sareeyayna waa jooga waa runtiis been ma u sheegin daa'ima laabna 70kii madaxa ka jara amriga qofka islaamka ah ku xisaabtama waa dhaaf mansab uma laabna oo masabkii ugu sareeyay qof Soomaaliya gaar ku fadhiya waxa uu yiri maxaan raadin karaa aan ka ahayn Soomaali ayaheeda ku istaagta raadin maysid ee waxa raadinaysaa hunguriga waxa marsiisid madaxweyne waxa dhibka ku haystaa wixii intaas baadoo gaaro haddana isog baan haddana lahayn nasabad aad isku qabatid ama aad kaga tanaasulid hunguriga wax la kaga tanaasulid oo aad danta dalka iyo dadka ugu shaqaysid nasabkaas malihid taamarkan ku leeyahay ma ku caayayo ayaga ma Soomaali baan u gardhigaya liis baan halkaas soo dhigaya maanta liiskaasi muxuu yahay marka meel allaala meeshii irsaaqa taalay waxa tiri gabadhayda ninka gabadhayda qaba alashan Djibouti oo yar baan noqonay Djibouti oo waxaan noqonay liidata oo amnigeeda la sugo haddaad ogeyd Ismaaciil Cumar Geele oo kanaagtiisa qaba kanaagtiisa gabadha dhashay qaba kan gabadhiisa qaba seediyaashi in adeertii waxa wadanka ku wada dhibadaan qashid kiyo kala noqoto maskax Djibouti soo waariday ama Ismaaciil Cumar Geele soo waaridayna waa nagu maamulaysa waxaan rabaa marka barnaamijka garnaqsi baa leeyahay ummadda oo bardhigaya anoo kuma xukumayo ayaga sheegaya waxa tahay ina oday Soomaaliyeed tahay amrigan aan ka fakarayn inuu dhaqaale sameeyo ee ka fakaraya dalka inuu dhiso iyo inaad tahay tuug halkaas dhuunta ah ayo cadahay aan wax kala marin inaad tahay barnaamijka sheeg madaxweyne xilka waxa joogta hal sano number 1 waxaad magacawday gabadhaada ugu horeysa oo maanta wasiirka arrimaha dibadda ku ah awal waxay ku ahaan jirtay dhaqaalaha shirarka meelaha ku raacay waxaas ay qaabilsanayd laakiin waa ka dalacsiisay oo shaqadii wasiirka arrimaha dibadda oo magacdo waajihan Xasan Sheekh Maxamuud number 1 number 2 Cabdiqani Xasan Sheekh Maxamuud oo aad u dhibtay saamiga qaadka lacagaha idin ka soo galo dhan aad tiri adigu halka ay fariiso Xuseen Xasan Sheekh Maxamuud oo adiga walaalka ah qandaraas taargada baabuurta qandaraaskiisa gacanta u gelisay oo halka ay fariisan itri battery Ali Xasan Sheekh Maxamuud oo adiga walaalka ah qandaraaska shidaalka ciidamada guud baa u dhibtay yaa xidha itri battery Sahara Umar xaaska madaxweynaha waa adiga xaaskaaga maxaad u dhibtay qandaraaska Fly Dubai battery iyo fariisalkaas oo ka samee way
عمر علي وحاسك الله هذا مدحوينها قندراسك أيها ودي توحويه العربية أو ايرلاين ديار العربية وحصل معك فريسي كاتري يا سيد عافيني الله وعلم بيرك وليبان سعدي علي خليف وعيد الشيء نور الشيخ محمود ولا شعر الشيء وحادو ديبتي او مغعوداي اغاسيمه ku-xigeenka migration miga haysa intaas waa familygaaga weyn madaxweyne maalin waxa tiri familygaygu ina aanu madaxweyne noqday familygayga xuquuqdooda lama duudsi karo ayaga waa muwaadiniin baa tiri sax waa macquul laakiin familygaaga maxaad ugu magacaabi weyday meelaha aan dhaqaalaha lahayn u baahan inta dawac looga shaqeeyo oo umada loogu adeego maxaad madaxweyne ugu dooran weyn oo meelaha dhaqaalaha leh aad u fariisis meeshii dhadhalaba maxaa u fariisis hadaa lacag doon adiga familkaagu ahayn madaxweyne dhargi meys shantii hore waxa xaraashatayna barnaamij dambaan ka qaban doona oo madaxa u siin doona laakiin bal hadda halkaan sano kaliya inta aad xaraash iyo hadii alla ku rooyahay dhanaan ku jirtid ayaan wili ku tirnaa faano la fariiq ma qodna madaxweyne waa timid madaxweyne hadii ka horeeyo farmaajo wax allaala markuu meesha aad ku wareejisay dawladdu xiriyaha ay lahayd sidoodii baad ugu timid ma dokumentiga maalinta u dhibtay hadalkii uu ku yirina waa xasuusta dhulkii dawladda oo aan 20 tilaabo Allah ka dhigay aysan ka maqnayn faylkooda iga qabiyo sawirkaas oo maalinta ku wareejinayay dokumentiyada xiriyaha dawladda 20 ma u gadan mana xaraashan caruurtiisana kuma usan siin dhulkii nooca ahaa waad xaraash geysay maanta rag baa wakiilatay saaxiibadahay soo iibiyaad lambar 1 wasaaradda caanaha lambar 2 wakaaladda hargaha iyo saamaha lambar 3 carwadii taleex lambar 4 shirkada fashaale lambar 5 warshada barafuunka lambar 6 warshada baasada lambar 7 wakaaladda xoogay korontada eeneeyo degmada xamarweyne ku taalay lambar 8 xeer ruush oo ka soo jeeday isbitaalka xooga lambar 9 isbitaalka Lansireed lambar 10 garaashkii geedoole oo ahay xaruntii inji ee kaydka dalaga qaybta kaara yaa ugu beeninay madaxweyne adiga xirtaada ma beenin karnaa intaasna xaraash baa maanta ku jiiday oo ganacsato reerkaaga baatri iibsado lacagta igu shuba akoonka gabadhaadana wixii saaran in lacagta tiriso saatiraado madaxweyne da'daada aad noo sheegto aad tiri cumrigii islaamka ku xisaabtami jiray waa dhaaftay 70 xagga u dhaaftay iyo mansabka aad gaadhay ma isleeyihiin dhuunta hadaa wili wax u raadinaysid madaxweyne hadaad baahan tahay dad wax ma qaban kartaa madaxweyne ma ii sheegi kartaa maanta ma ii dhihi kartaa maanta ba lacag ma doonay ma ii dhihi kartaa dadka aad u khudbaynaysa hortooda kala hay dhaqaale dooni maye waxaan doon ma sabna raadin maye Soomaali isku taagan doonaya Soomaalidu madaxweyne ma naagtaada iyo caruurtaada iyo walaalahaada Soomaalidu ma kuligooda wax bartay ma kuligooda meelaha lacagta tiri yaqaana xiriyaha la xaraashayo oo xaafadaha u xaraashaysa madaxweyne ma aqal ma waxaano dadku inta ka soo horjeeda ma waxa ka soo qaaday dad aan nothing ah oo aan waxba kala aqoon yaa ka soo qaaday madaxweyne maxay tahay baahida adiga ku haysa ee madaxweynaha adiga ka horeeyay aan hayn hal dheyd buu qabtay asagu 5 sano kaliya madaxweyne ah adigu 5 sano hore iyo 5 sano madaxweyne tii hore waxa ku dhargi weyday oo tan ka dhaxlaynaysid maxay tahay madaxweyne kii shalay asagoo boosada wata inta aad ku wareejisay asagoo waxba haysan waa farmaajo hadana kugu soo wareejiyay dhulka ayagoo sidoodii labadiina kee madaxweyne dan Soomaaliyeed ka shaqeynayay naagta madaxweyne farmaajo oo qandaraaska shidaalada iyo qandaraaska bahalka haysata madaxweyne maanu arag laakiin islaantaada maamada aad qabtid oo meel kasta xaganaysa oo qandaraaska u dhibtaagna madaxweyne
gabar madaxweyne farmaajo dhalay oo ummadda ka horeysa oo wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisa haysa ma aanu arag laakiin gabadhaada waxaana ummadda ka horeysa madaxweyne gabadha farmaajo ka aqoon badanta gabadha madaxweyne farmaajo qabo oo haddii la ku reeyay jaamacadda dhigata meesha la yiraahdo muxuu ahaa Harvard miyaa jaamacaddii Mareykanka ku taalay dhigata gabadhaada miyaa ka aqoon badan oo wasiirka arrimaha dibadda ka horeysa madaxweyne islaanta farmaajo misaanta ka aqoon badan ما كما أقول بدنا كل عكس عليه واحد وكل عكس عليه مدحوينه dadka garaadkooda haay Soomaalidu waa dad emotional waadu imaanaysa adoo inta wada birbireeyay afka wada gashaday caloosha ka wada buuxsay wadan calooshaada ay ka taahayaan ka wada qaylinayaan baadu imaanaysa waxa leedahay dadkana u fiican ma yarad ka ku saabirayaan dabaq madaxweyne adiga xasana oo aad og tahay maanta waxaa shir ka socdaa meesha la yiraahdo caalamkii oo dhan UK bay isku yimaadeen maxay doonayaan maanta UK baa caalamkii oo dhan asuntay waa caana shubkii boqor Charlie waa lagu diiday timaadi codsi baa dhisatay waa lagu diiday warqadana waxaa lagu soo qoray maadaama aad ku eedsan tahay musuqmaasuq ma doonayno inuu foolmooda ummadda soo hor istaago qof musuqmaasuq ku eedaysan hal sana joogta wayeer baad joogtaa markii uu leeyahay musuqmaasuq ku eedaysanta madaxweyne isxisaabi ummadda inta hor timaadid ummadda been ha u sheegin ummadda emotional la imaan dadku aniga kan ugu liitay inaan ahaan aaminsan aqoon ahaan iyo garasho ahaan bal ka sheekay madaxweyne kumanaan malyuumaadka wax bartay ee khudbadaada arkaya ee adoo tuug aad hor taagan tahay oo aad leedahay lacag dooni may سامس كحاضن وانت كاس ميسان يتبين فلن توجا هاو لكن توجا حيصير لهم تنقل ماذا حوين توجا هاو وكوجنا توجا نملان هذا توجا واكو دورنا أو بارلمان توجا واكو دورتي بس توجا نملان لهم جانجس نقو هالك على فريسة وحاك ما نديت كأيضا اللي قارن إنك ما كمان كرنو هالك ما كمان كرنو وحن كمان كرنو مالك لكن لهم توجي سوق نقو لكن غير تبانتي ومدني يدلها كسيرين مركي عاد غير تبانتي نسوي استاكتيد أنا عايسة كل واحد برطلع عايسة كل واحد فاهم سنة عايسة سياسيين تبع عايسة وحجارات تبع عايسة لأن يرضي واحد برطلع عايسة تسوي استاكتيد قلت لهيد توج ما هي آمن بانا أضو أنت أن كوتري لقالك السمينية وحوله هذه الجبية وحوله حراشية وعنتده هذه بيعينية وهدي على كورة يدلولك حراشية ووحبا كتغين وحاشيقاد وديرنديرة وقويسكا كأديكي دالكي مركاد اسأمانتيد waxaad ka soo qaaday waxa ay barteen iyo aqoontoodu inay naftinta ka soo qaado ayaga gaadkooda waa caayisa marka min fadlikum waxa rabtay dhac dhulka daldalo dhulkan xaaqo Soomaaliya galo balse dhalinyarada wax baratay maskaxdooda ha caayin oo ayaga haneer jibin ha ka soo qaadin dad juhulo ah oo mugdi ah oo aan ku fahmi karin marka anoo wax bartay oo soo taagay oo ay soo hor istaagtid oo adoo tuuga u jeedo ummadda halka xoolahoodii kugu jiraan ay tiraahayeen ma aniga waxa iga soo qaaday markaas qof aan waxba kala ogeyn aqoontii marka maxay ku dhacay waxa ku dhacay maskaxiin ma xanuunsanaya waxa madaxweyne markuu cayl soo hor istaago oo idho waxa ma ogid waxa tahay jaahil markuu idho diiwaaniye tabaya marka min fadlikum adoona dhacaya adoona xaarofinaya adoo dhulkii xaraashaya adoo Soomaali beecinaya adoo waxba ka tagin adoo caalamkii laga qoray inaad tahay musuqmaasuqaysan tahay min fadlikum hanu ugu darin dhalinyarada wax baratay inaad maskaxda ka abiyustid intaasan ku leeyahay madaxweyne ummaduna maanta ummadda Soomaaliyeed waa dad smart ah kooda tuugaayo kooda kale waa kala yaqaan walow aysan waxba ka qaban karin kii adiga ka horeeyay ee kursiga aan ka dagay maalintu ku wareejinay wuxuu yiri dhulkii aad ugu wareejisay dawladdu lahayd waxaan dhisay mahay wixii aan dhisnayn haltaa kama maqonayo haltaa intuu ku dhiibay 13 ka xiraba maanta xeradood weyn ugu hooseyso 13 ka maanta xaraash ba ku saarayeen barna waa la xaraashay barna hadda lacag tirnay gabadha oo tirnaysa ka soo xay leedahay daayimadina مصري مدينة سومالي تاجر على كل سنة ترى ما عجا ما هي هرت ما هي استاجته أنت دحارة كلا بحضيان ما هي استاجه
maxaa istaaga qof dhexdaa la kala jaray halkaa iyo halkaa laga jaray ma istaagi kara ma istaagi karo ma istaagi dhexdiiba kala baxda dhulkiiba galatay ummadii xaraashatay Soomaaliya beecisay maxaa istaaga marka maxay ku nuugtaa maxay ka nuugtaa madaxweyne ilmahooyada tuuga tahay aan kama dhargaan Soomaaliya istaagi mayso inta adigoo kale uu kursiga noo qabanayo anigoo kale oo soo fadhiyana aan qabiilku ugu taageerayo Soomaaliya ma istaagayso nothing inta tuugu reer hebelnimo ku daaqayo Soomaaliya ma istaagayso inta habaar qabuhu ama dilaagu ku soconayo reer hebel weeye Soomaaliya ma istaagayso Soomaaliya waxay istaagi doontaa marka aqligu shaqeeyo marka aqoontu shaqeyso marka ay shaqeyso wadaniyada wax la yiraahdo marka la ixtiraamo midka yaga wax noo qabanaya geesiga dalka jecel diinta jecel ee Soomaaliyadu ku dheehan tahay marka la ixtiraamo maalintaas Soomaaliya hagaagaysa wuxuu yiri hadirinina libaxyadiina si aysan idin cunin cadow eeyaha cadowga isku soo duub xasanow waa codsi kaaga yimid shacabka fadlan han abuse waxa aragto cun xor baa tahay waxna kama qaban karo shacabka Soomaaliyeed fariinta isgaarsiin ko tan labaad gartaa idinka idin dhiiba waxaad soo kala qoraysaan xasan maruntiisa oo ma 70 jir mansab iyo hadii la ku reeyay wax kasta ka dhameystiran oo daacad u shaqeynaya Soomaali inay istaagta doonaya mise waa tuug dalkan iyo dadkan xaraashanaya familigiisana ka biilaya dhaqaalana ka sameynaya halka liiska idinka yeeriyay idinku ka cabir qaadanaya idinkaan gartaa idin dhiibay anigu gartaa ma jarin fakarkaygaan hadlay cadayntiina waa idin keenay dhulka la xaraashanayo iyo qoyska meel kasta oo dhaqaalaya